وأنا سلام دمانتين ku soo dhawaada channelkeena Moolima channel maanta waxaynu qaadan doonaa size-ka ama aspect ratio-ga ugu quruxda badan ee lagu soo upload gareeyo Instagram. soo dhawaada mar kale inta aan u guda galin sharaxadeena marka hore waa in isla fahanna waa maxay aspect ratio muxuu soo kala qaybsamaa aspect ratio-ga wuxuu u kala qaybsamaa ilaa iyo 4 aspect ratio-ga ugu horeeyo waa 16:9 oo ah muuqaalkan hadda cabirka aan ku duubayo waa 16:9 16:9 waa midka ugu caansan ama the most popular ah oo ay 90% dadka isticmaalaan 16:9 16:9 haddii aad ku upload gareysid Instagram-ka ma ahan mid qurux badan oo dadka attention-kooda soo ma jiidanayo oo si fudud ay isaga gudbin karaan marka loo fiiriyo aspect ratio-yada kale haddii aad rabtid inaad sameysid sawir ama muuqaal kooban aspect ratio-ga 16:9 cabirkiisa halkan ayaa ku soo dhigaa aspect ratio-ga xiga waa 1:1 oo ah mid square ah laakiin aan gaareynin result-ga midka aan u soconay oo ah 4:3 aspect ratio-gan badanaa waxaa isticmaala memeska oo kale marka la sameynayo ayaa la isticmaalaa waxaa sidoo kale isticmaalo media sida warbaahinada waaweynka waxay markii ay soo upload gareynayaan Facebook ay muuqaal ku soo upload gareynayaan waxay isticmaalaan aspect ratio-ga 1:1 ama square sidoo kale haddii aad rabtid inaad sameysid sawir ama muuqaal ah aspect ratio 1:1 cabirkiisa waa kan aspect ratio-ga saddexaad waa 4:3 oo ah midka ugu quruxda badan markii aan aniga ku dhiiday bilaabay inaan isticmaalo aspect ratio-ga 4:3 ayuu Instagram ciwaankayga Instagram-ka asagana bilaabay inuu koro ama ay dad badan ku soo xirmaan sababtoo ah waa aspect ratio qurux badan oo qofka marka uu fiirinayo telefoonka ka daawanayo postiga aad soo dhigtay aspect ratio-ga 4:3 ah kama gudbi karo oo ma arki karo postiyada ka horeeya ama ka dambeeyo maxaa yeelay sida aan ka soo hadalnay aspect ratio-ga 16:9 oo ah mid loogu talagalay YouTube-ka oo kale haddii aad ku upload gareyso Instagram-ka dadka si fudud ay isaga gudbi karaan sababtoo ah waxay u jeedaan postiyada ka hooseeya oo attention-ka soo ma jiidan karo laakiin aspect ratio-ga 4:3 detail-ka dhan fit ayuu ku noqonayaa screen-ka aspect ratio-ga afraad ama ah midka ugu dambeeyo waa 9:16 oo loogu talagalay stories-ka haddii ahaan lahayd WhatsApp-ka ama Instagram-ka ama Facebook-ka kaasoo ah mid fit ku noqonaya story-gaaga okay markaan asla fiirino waxyaabihii aan ka soo hadalnay ayagoo real life ah tusaale ahaan markii aad rabtid inaad posti ama muuqaal ahay aspect ratio-ga 16:9 aad u bedeshid 4:3 oo ah aspect ratio-ga ugu quruxda badan ee lagu upload gareeyo Instagram-ka for example aniga hadda waxaa isticmaalaya Adobe Premiere Pro 2020 feature-ka ugu fiican ee lagu soo kordhiyay waxa uu yahay auto reframe oo si dhib yar markii aad dhameysid project-kaaga aad sameysatid si qoysigiisa ayaad dul tagaysaa right click ayaad ku leedahay waxaad ka dooranaysaa auto reframe oo isaga ayaa wuxuu ku soo suggest gareyn doonaa dhowr aspect ratio tusaale ahaan hadda waxaa ii soo baxay aspect ratio halkan ayaad ugu jeedaa marka drop down-ka gujiyo ama aan furo waxaa halkan ka aragtaa dhowr aspect ratio oo ay ka mid yihiin 4:5 oo aan ka soo hadalnay 9:16 iyo 16:9 marka aspect ratio ugu quruxda badan waa midkan 4:5 ka ah 4:5 ka aad kala siisanaysaa simple create ayaad leeyahay oo Premiere Pro isaga ayaa hawshiisa gudanaya markaas oo project-igi ku sameysnaay oo 16:8 ka ahay ayuu wuxuu kugu bedelayaa 4:8 okay waa kana sida halkan ka aragtid wuxuu ka dhigay project-igi 4:5 project-igi ahay 16:8 sidoo kale technique-gan waxaa ku daba kartaa sawiradaada oo kaliya muuqaalada kuma sameyn kartid for example haddii aad haysatid sawirkaas waxaad ka dhigi kartaa inta aspect ratio oo aan ka soo hadalnay aan isla fiirino hadda hal tusaale aan isla fiirino tusaalahan sawirkan 16:9 aan kaga dhigayno 4:3 markaad sawirka ku soo firtid Photoshop ama whatever software-ka aad sawirada ku qurxinaysaa hadduu ahaan lahayd Lightroom ama software-ada kale simple si ayaad taabanaysaa Photoshop markaad soo furatid halkan sida ugu jeedid 16:9 ayuu ku soo qabtay laakiin anaga ma rabno oo aspect ratio-ga waxaan rabnaa 4:3 halkan waxaan ka dhigaysaa 1080 halkan kalena waxaan ka dhigaysaa 1850 sida ugu jeedid crop ayuu geliyay waa kaas frame-ka inta aad rabtid ayaad ku aadisanaysaa oo bacdeen tick ayaad siinaysaa oo sawirkaaga hadda wuxuu ku yahay 4:3 aspect ratio
waxaan rajeynaa inaa cashirkan wax uun aad ka fahanteen channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe gareey haddii aad hore noola joogto waa mahadsan tahay inta aan ku kulmi doono cashirkan xiga waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo